virus waa kan hadda aan ku jiro ee coronavirus-ka ah virusna waa virus muuqda oo visible ah oo dadku ay arkaan oo qofka bidhaantiisa laga dareemo Adili iyo Mustafa horta saas isku yihiin waa laba virus bay ahayn oo ummadeena loo soo diray bay ahayn anu sideen aaminsanay ninuna waa virus bud wata oo qori wata oo dadka dilaya ninna waa virus kaleeto oo technique kale isticmaalayo way technique uu isticmaalayna waxa weeyaan buuga uu qoray ninka la yiraahdo David Carlos ee uu ku qoray la dhaho colonial impact strategy wuxuu qoray settlementigu maaragtay gumaysigu marka uu dal qabsanayo ama dad u baabiinayo saddex istiraatiijiyad buu isticmaalaa ama saddex tool number 1 wuxuu isticmaalaa waxa la dhaho large settlement occupational displacement in dadkaas la waxeeyo cultural genocide in lagu sameeyo oo cultural genocide waa maxay linguistigooda iyo culturekooda in la tirtiro culturekooda la tirtiro in iliyeedkooda kuwa hoggaanka u ah kuwa maskaxda u ah kuwa talada loo dhiibo walba taqaanaa isha la qabsado oo la maamulo anu mar walba waxaan lahaa dadkeenu ilaa ay ka dooranayaan dad iyagu ay doortaan oo interestigooda ku hadla oo dantooda ku hadla oo mustaqbalkooda ku hadla oo rabitaankooda ku hadla ma xoroobayna maskaxda kama xoroobayna caqliga kama xoroobayna sababtay tahay waa maxay maanta u fiirsada deegaankeena maxaa maanta ka jira maanta deegaankeena waxa ka jira waxaan rabaa inaan barbar dhigo genocide of Rwanda buug waxaa jirta la dhaho 60 days of genocide 60 beri ee xasuuqa ah oo laga qoray dalka Rwanda laga qoray taariikh yar haddaan idinka akhriyo Rwanda genocide-kiisa waxa sabab u ahaa colonial resource baa sabab u ahaa Belgium ka abuuray Belgium-kii baa Hutuga iyo Tutuga isku diray kadibna waxaa dhacay Afgembi baa dhacay xukunkii baa lala wareegay xukunkii markii lala wareegay waxaa dhex galay xukunkii cusbaa ee hogaankii cusbaa ee dhex galay niman la dhaho Kuxi oo ah group jointed ah oo extremist oo xagtirin ah oo aaminsan psychological revenge and physical revenge emotional revenge aaminsan nimankii waxay la wareegeen idaacadihii miidiyihii iliyeedkii ganacsigii dhaqaalihii wixii oo dhan bay la wareegeen si ay hawshooda u fuliyaan marka nimankii nooca ahaa xasuuq bay perpetuation u noqdeen ani waxa ii muuqda marka deegaankeena inuu jiro niman qurbaha ka tagay oo extremist ah oo xagjir ah oo qorshe loo soo dhiibay oo balan loo soo dhiibay oo qorshaha iyo balanka loo soo dhiibay uu yahay in dalkeena uu ka dhaco genocide aan ku kala tagno oo isku nacno Ethiopia ku soo hadhay they don't fucking care about danka ma laha iyo way rabaan inaad qaxdaan inaad baaba'daan iyo way rabaan dulsaar baadna ku tiidin reality baad sheegaya extra ku tiidin Ethiopia haddaydan extra Ethiopia ku ahayn maanta 7 nin baa talada dalka Ethiopia loo dhibay hal Soomaali ah kuma jiro awe kuwini lahaa talada dalkan wax ku yeelanayna hoggaanka saraan qabsanayna Mustafa Prime Minister noqonaya nin 7 nin ee dalka ugu sarreysa hal qof looga diiday one person baa looga diiday sidee ku qabsanaya annaga dhibaatada ina haysata waxa weeyaan istaari baa laynagu sameeyay istaarida laynagu sameeyay waa maxay weakness-keena la arkay weakness-keena waa maxay waa qabyaalad weakness-keena qabyaalada ah ayaa waxaa colonialku ay rabaan mar walba inay ka faa'iideystaan oo u isticmaalaan as a tool of oppression as a tool of occupation loo isticmaalo waxyaabahan arko waxaa ka mid ah social normska xataa ka duwan dad dhan oo deegaan degan tusaale ahaan in la dhaho askar bay ahaayeen qori baa loo dhiibaa dadka inay dilaan baa yaanu qabsanaynaa 2 nin oo hunguri aan siinimo waayno 3 nin oo hunguri aan siinimo waayno oon dhahna dadka noo xidhan noo laaya waa language ay ku hadlayaan way waa deegaan dhan ummad dhan nation dhan oo meel jiro oo degan way
waxaan idinka digay oo kaleeto anugu عديلي وان كهل جري إثيوبيا وان كهل جري نعدالة بامسة وحق إن أنا عديلي كهل جري أو كهل جري عد ظلمي كهل جري ديجان كأنه كدعة أو ضدك تشيل وقادم كتير كهل جري إن ما أنت اللي له توق بات هي جاء أوريه بلا أرنتاس ملقى فكري أنت أي لنا يسوع مستقبل كيجا أي كوي لنا كرت ملقى فكري waxyaabaha dadka radicalka ka dhiga ama xagjirka ka dhiga waxyaabaha weey kii dhaawac ahaa ee maanta jijiga jooga in qabiil loo nasbeeyo waxa soo dhan aaba iyo hooyo waxa waa colonial conspiracy-ga loo gudbinayo ee uu gudbinayo gumaysiga loona soo dhiibay niman aaminsan ummadan in la shirqoolo oo la isku dilo oo la isku baabi'iyo حارب أنا ذي فيديو هل جن كصدم سلوس هو سعودي إن لده قبيل باسودي شفاء وقاعدين كم إذا محمد سوير كم إذا شفاء سعودي أنا أسوي هالجني دتكي صوت ننتي أو دتكي نجاب كات ننتي كمانكم كقفها وحي يقول ننتين قبيل بيقول ننتين توق بيا هاي العبديل يريركو ذا waxay ahaayeen dad aan wax jirin bay ahaayeen anaga kaligeena baabaanay anaga kaligeena dhimanay anaga kaligeena ayaa jeel ogaadeen ku jiray anaga kaligeena ku waxaynay in ahmaaro iyo oromo loogu sheekeeyo siyaasaduna halka ay gasho I'm telling you ka aad u waramayso uu ka faa'iideysanaya inaad stubber tahay uu ogyahay inaad nin waalan tahayna uu ku arkaa ma fahanti inaad nin waalan tahayna uu ku arkaa laakiin kuma shaqeynayso waxaas kuma shaqeynayso xukun baa naloo diidan yahay cabdiilay baanu taageeri jiray imise reer hebel oo cabdiilay taageeri jirtay cabdiilay kuwa taageeri jiraan idin sheegaya cabdiilay qabiil aan taageeri jirin ma jirto kuwa maanta kililka ku jira ee deegaankiina ka soo jeeda ee halyeeyada u taqaanaan ee Mustafa la shaqeeya ayaa cabdiilay boorsooyinka u qaadi jiray oo u shaqeyn jiray oo dadka la dili jiray in kaasna aad tiraahdaan waa halyey oo uu soo halgamay aad dhahdaan iyo waa la qasbayay iyo waxa weeyaan tala muusan lahayn waa yahay waa halyey waa la qasbayay haddii annaguna waxaanu dhahaynaa faaruuq warfaa iyo cabdi caadil waxa aad dishaan berritoole waa la qasbayay oo waxa meena dilin baan leenahay idinka kaligiin baa dili jiray caqligiinu intaas waxa taafaa bilaayahay aadan faarax waxa ma dili jirin kuwa hadda maamulka ku jira ee Mustafa aan reerka ahayn waxa ma dili jirin waa la qasbi jiray idinka kaligiin baa dambiilayaalaha caqligu saa kuma shaqeeyo adduunyadu saa kuma shaqeyso waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaabaha aad ku hadlaysaan waa waxyaabaha Mustafa meel fog ka riday waa waxyaabaha cadawada u beeray Mustafa wallahi billahi tullahi waa idin aqal celinaya shantii nin qof iyo shantii nin wiil ee miiriyaha soo gasha cadaani hirmooge yaa wuxuu yiri magaalada Jigjiga lama geli karo ciidan looma isticmaali karo ma fahanteen sababtu uu yiri hadda idin sheegaya arinta inaad maqasheen mar mareynaa in badan cadaani hirmooge wuxuu ka baqayay markuu hadalka lahaa isagoo berri hadduu madaxweyne noqdo in military loo adeegsado intaas aad fahmi lahayd isagoo hadduu berri madaxweyne noqdo in military loo adeegsado oo la burburiyo yu ka digayay ma ahayn cabdi ilay jacayl uu qabo oo uu ka digayay ma aha Mustafa in awood military loo adeegsado yu ka digayay wuxuu lahaa cadaani hirmooge war berritoole waxaan cabdi ilay loo adeegsanayo ee militariga Mustafa loo adeegsani annagana loo adeegsani nin walba Soomaaliya loo adeegsani dadkan deegaanka degan ee ismaamulka ah cidii doona ha timaado cidii doonta ha xukunto iyaga faraha ooga qaada waxooda intaas aad fahmi lahayd inta aad fahmi lahayd waa inta hadaani baa difaacay hebel buu difaacay wuxuu difaacay cadaani taad ku sameysay waan ognahay qoraal intaad qorteen oo aad 60 nin oo hal beel aad qorteen hal beel ah yaa tiraahdeen
Tigray weeyaan 60 nin oo Oromadii idinka diiday hal bil oo cadaan hotel ku xidhnaa jaajuusnimo haddii ay rajo leedahay kuwii Tigrayga u shaqayn jiray baa meel ku gaari lahaa jaajuusnimo please learn from them fadlan ka barta casharka ka barta iyaga casharka ka barta meeqa milyan baad ahaydeen idinku 30 sano kaligiin markaad soo halgamayseen haddii la daldho kuweeshikaas la weydiiyo kama jawaabi kartaan mala zanaawi baa wuxuu yiri reer hebel baam ii diidan hadda mala zanaawi stupid maaha inaad waad caqligan aad hadda ku doodayso ayuu rabay mala zanaawi inaad aaminto oo aad codad ku gasho oo aad qabiil ku galo oo aad dadka qabiil ku eriyato ayuu rabay mala zanaawi soo kama caqli badnayn marka mala zanaawi soo aqoonyahankiina kama caqli badnayn soo garaadadiina kama caqli badnayn soo maskaxdiina kama caqli badnayn Soomaali soo kama caqli badnayn mala zanaawi marka ilaan wuxuu yiri baad qaadateene intaas fahmin shirqool baa la idin dhigay dad garasho lehna malihin dad iska cadifadaysan dad iska ciyaal yar oo iska waxaysan naago ordaya niman ordaya odayaal aan mataqaanaa ii sheeg qandaraas siyaasi qandaraas raadinaya masiirka ummadiina wallahi billahi tallahi whether you believe or not haddaad aaminaysaan iyo haddaadan aaminin god buu ku jiraa wallahi billahi tallahi meesha ay gasho sida looga soo saarana way adkaanaysaa maanta deegaankiini axmaaro ya xildhibaano ka noqon doonta cid walba ka noqon doona cid idinka weydiinaysa ma jirto cid xataa ixtiraam idin haysana ma jirto axmaar habi baad ku tahay inuu deegaankaaga wax ka noqdo kii kula dhashay ee walaalka aana waxa weeyaan cadow baad ka dhigatay haddana waxaad leedahay taageer midda kale sideed caqligal u tahay in aad tiraahdo hooygaa tahay qabiil baa tahay kanaa tahay haddana taageer war qof aad cayni oo aad eryanayso oo aad dilayso oo aad xidhayso oo aad eryanayso sidee buu kuu taageerayaa amaan buu ka heli laayahay qof aad ugaaskiisa caynayso oo garaadkiisa caynayso oo madaxdiisa caynayso oo odayaashiisa caynayso oo qabiilkiisa caynayso oo haddana aad leedahay taageer dadkanu ma stupid baad u haysataan dadkani waan ogahay qaarkiin waxaad ku sheekaystaan reerkani waa askar waa reer miyi cilmi ma laha waxa ma baranin hoggaan ma laha caaqil ma laha annaga ka awood badnaanayna haddaanu isku duubnaano caybay wax ku leeyihiin idin baa loo yeelaa waa la cabsi geliyaa waa la garaacaa war 60 sano baa dadkani Itoobiya sidoo ku sameynaysa iyo 100 sano oo Soomaaliya shart am lagu hayay oo reer hebel lagu hayay oo la dilayay ma baaba'ayaan mana guurayaan meelay u socdaanna ma laha caqligu inuu shaqeeyaa loo baahan yahay hogaamiye ina cagjar inuu hogaamiye noqdo xaq buu u leeyahay dhulku waa dhulkiisii dadkuna waa dadkiisii cid uu marti uga yahayna ma laha laakiin inaad qofkii ina cagjar in yar dhaliilaba inaad qabiil ku shaabadaysaan oo aad qabiil aad la daba socotaan oo aad criminal ka dhigtaan oo dambiile aad ka dhigtaan sabab yar wallahi iyo billahi inaan sida aydan taageero ku kasban karin oo aydan wax ku noqon karin dadku wuu xisaabtamay dadku wuu soo jeedaa dadkii ma aha maalin walba ronoq beed baad caydaan oo dhahdaan waa reermi waa xoolo waydan daawanayaan ugaasidoodii caaqilkoodii doktorkoodii waydan ka xishoonayaan ma inta dadku idinka xishoonayo yaad u malaynaysaan dadku inuu stupid yahay dadnimadaa ku dambaysa cultureka ku dambeeya dhaqankaa ku dambeeya ehelnimadaa ku dambaysa waxay ilaalinayaan xataa ma fahmi kartaan Facebook baad soo galaysaan idaacadaad fadhiisanaysaan sharar baad qabsanaysaan waa
dadkuna xayawaan maaha anigu waxaan idinka digayaa kuwiinan Mustafa Cagjar taageersan ninkan ha ku dirina dadka waayo talo wixii anigu ka digayna waxaan ogaa inaad dadka ku wada diri doontaan oo aad qabtaan genetical disorder fudayda aad qabtaan Soomaaliya genetical disorder fudayda aad qabtaan oo idinku shimbirtii dabka qaaday ee gurigeeda gubtay aad noqonaysaan fuday dartii mana aha dadka deegaanka degan oo dhanna ma aha waa jifa yar oo reer jifa si yar oo dhowr qof weey dadka deegaanka degan ee Soomaaliyeedna daawan ma hayaan waxan runta la isu sheegaya ma daawan karaan Soomaaliya ma daawan karaan waxani in wadanku ay khalkhal la geliyo oo amniga khalkhal la geliyo oo aad civil war aad iclaamisaan oo aad dadka aad madaxa isu gelisaan oo aad qabyaalad iyo nacayb iyo hate iyo extremism aad afurtaan dadku idinka yeeli maayo waa la idin qoray magacyadiina maxkamadda federaalka Ethiopia la idin geeyni ta caalamka la idin geeyni kulligiin waa la idin wada qoraya beritoole wax alla wixii meesha ka dhacana mas'uuliyadeeda idinka qaadaya مسؤوليته دي كقاضية everybody or involved قف والبا قدام بيجا أتجلسان قدام بيجا ودين لجليا هذا الشيء قف والبا قدام بيجا جلسان ودين لجليا كل يوم قدام بيجا يدوكوا إكانيا صغير يدوكوا إكانيا أنا وحنا الله دب إنتاج سوول عبطان دب إنتاج سوول عبطان دفك يدفك دفك عتقوة دان كداية haddii garasho iyo caqli uu idinku jiro hadda idin sheegaya saddex qodob aad sameeynaysan madaxweynihii idinka ah hogaankii nabadgelyadana idinka ah taliyihii looyii booliskana idinka ah inta aad ku soo laabanaysaan xaafadaha hoose maanta 7 qof ba Ethiopia magacooda talada dalka inay qabanayso 7 qof maxaa la idinka siiyay maxaad Soomaali u keenteen maxaad u soo kordhiseen waa su'aalaha idin weydiinayno 7 qof ee xisbiga lagu darayo ee cusub hal qof baad aad ka noqoteen idinka iyo xaafadiina guude 6dii kale tayaad siiseen seenagan baan rabnaa inaan isu dawladayno oo shaati dawlad iyo tuuta aan isku xidhano shalay dadka waxaad lahaydeen xuquuqdii Soomaalida aanu keeninaa حقوق الصومالي أو كنتر إسكده أنا قاعد الله الله حقوق ضيدي إسكده أنا جيبا أمني جي أخطر جلسين أنا جا أياد أمني جي خطر جلسين حقوق عادي كنتان ينولال عادي كنتان إسكده أمني جي بقى حتى خطر كتير نولا شيء دي بقى حتى خطر كتير تذكر سايد كم فيلين boqolkiiba boqol dadku waa idin taageersanayeen 99% dadku waa idin taageersanayeen meel walba caalamka durbaan baa la idinka tumiyay maxaa idin ku daray ma isweydiiseen horta bini aadamku waa inuu isweydiiyo oo war horta waxan sidana lagu taageersanaaye maxaa hal mar aad hoos ugu soo dhacday bini aadamku inuu isweydiiyo weeye ma isweydiiseen horta su'aashaas ana idin sheegaya very simple wax dhibaat samayseen ma jirto afxumadiina iyo akhlaaq daridiina iyo hanjabaadiina iyo goodintiina iyo dadka aad eriyanaysaan iyo dadka aad dambiga u sameeynaysan iyo kuwa aad dambiga lahaa aad hoosta soo gashanaysaan kaliya baa dadka idinku diray iyo dadka xuquuqdooda diideen ee deegaamadooda aad tirtirteen inta kaliya ee dadku idinku nacay waa inta ma saxi kartaan dadku idin wada taageereen haddaad leedihiin guud ahaan baan la hadlayaa haddaad maanta leedihiin garasho iyo caqli aad leedihiin oo aad tihiin dad caqli leh oo dad wax fahmaya aad tihiin maanta oromo iyo axmaaro dhexdiina maysan ku tartamteen maysan idin kala qabateen maysan laba wiil oo idinka oo ilmaadiradiina maysan qaarra oromo oo codayeen qaarra axmaaro oo mayna codayeen haddaad damiir leedihiin wixiina magaalada ku soo dhamaysan lahaydeen jigjiga haddaad damiir leedihiin عقلي هدو يدو كتيرنا ساس هذول ما يصلح هذين وحاطين هذين أي نهار كان سمينه أي نوالني ما هذينه
intay axmaare iyo oromo aan u kala safan lahayn waa gambling waa khamaar weeye and you never know ma ogin axmaare iyo oromo kolba kii xoog badnaado unbay guushu raacaysaa hadda bal ka warrama reality baan idin sheegaya waxaad ku jirtaan waa gambling marka gambling inaad dad aad eheltidiin aad u kala dhimataan waa laga fiican yahay anu wallahi talaan siinaya wax khamaar ah inaad oo khamaar ah oo xukun khamaar ah aad u kala dhimataan waa laga fiican yahay soo yar oo gambling ah oo dadkiina aad ku weydaan oo walaalada aad ku weydaan oo ehelka aad ku weydaan oo saaxiibadiina aad ku weydaan oo haddaan doona aan idinku daree shukaansigiina aad ku weydaan waan ogahay Facebook kuwa badan oo shukaansan jiray ya xataa aan shukaansanin oo blog saaray halkaas idinka maraysaa bal caqli haddaad leedihiin shukaansigiina iyo siyaasadii baad kala saari laadihiin xataa bal dad shukaansi iyo siyaasad kala saari la miyaa dal hagi kara ama dad dhinaca jar wax u tari kara dal xataa bahalkoodii ku heshiin waaye miyaa dad philosophers oo ummad hogaamin kara noqon kara dad bahalkoodii ku heshiin waaye oo garan waaye war dadkan eenagu waxba inagama geline eenagu aayar toole aynu iska noolaano aynu cuntadeena isla dhuuqno aynu dhaxanteena iska dugsano intaasaad kala garanaya oo kala guuray hataa dantiinni inaydan dantiinna aqoonin anu hadda idiin sheegaya ani naagtayda qoladay tahay waxba igama gelin qabiilkeedana waxba igama gelin ilaahu qabiilkayga iyo kooda ma isku baaba'aan I don't fucking care about ani naagtayda waxeeda aniga dantayda ah maxaa iga galay aniga qabiiladan iyo waxa isdilay hataa intaasaad garan laadiid ma garateen maxaad caqli maskaxdiinu xataa saa uma fikerayso bal qabiilkan kale aad u cadhootay wax ka soo hel hadee ka soo guurso ma guursa xataa idinma guursanayaan qabiilka kale aad u cadhoonaysaan xataa idinma guursanayaan aad u ordaysaan waa kulligiin single mother iyo father mother iyo single father baad wada tiidin xataa guri ay idinkuma xaraynayaan xataa waxa idin tiraan oo kale iska badaayay ma garatay guri xataa idinkuma xaraynayaan dantiina taas waxay ii muujinaysaa xataa dantiina inaydan aqoonin dad dantooda yaqaana aydan ahayn bal naagta la yidhi ama ninka la yidhi war isku reer hebel baan nahaye oo isku fikir baan nahaye kaale oo sariirta soo seexa ma ii sheegi kartaan ma jirto naag walba meel bay ku xoqanaysaa nin walbana meel buu ku xoqanayaa intaasna xataa fahmi la idin maateed waxaan idiin sheegayaa dantiina ma taqaanaan dantiina barta ma fahanteen naagahanna waxaan u sheegayaa haysdhihiina ninkana waa reer cabdillah collatae kulligiin aniga luuqayga soo gala anuu waxaas ma aqaana naagahan ka jeclaayo qabiilkan iyo waxan oo dhanba ma fahanteen kulligiin luuqayga soo wada gala ma fahanteen aniga ii soo wada gala anu waxaa ma qoreen ma garateen kulligiin luuqayga soo gala ciddii iyadoo naag la'aan qabiil u noqonaysa iyo nin la'aan qabiil u noqonaysa iyaday u taallaa iyaday u taallaa ma fahatay aniga luuqayga ii soo gala ma fahateen reality baan idiin sheegayaa dantiina ma taqaanaan dantiina garta Ethiopia xataa inay sariirihiinna idinku qabsato waa caqli xumada nooca ugu xun weeye Ethiopia xataa sariirihiinna inay idinla maamusho ma garateen wada waraste caqli xumada ta ugu liidato weeye sariirihiinni xataa inay idinla maamulasho soo gar halkaasaad maraysaan nolosha maxaa idin dhiman marka inaad baaba'daan ma fahanteen maxaa idin dhiman ma fahanteen maxaa idin dhiman halkaasaad ka tiidiin garasho iyo siyaasad iyo maskax aad ka tiidiin dawlad xagga iska badhigba iyo siyaasadba xagga iska badhigba anu waxaan leeyahay dalkan iyo dadkan shirqool baa loo degay shirqoolkana rag baa qandaraas ku soo qaatay dadka deegaanka degan shacabka deegaanka degan waxaa la rabaa inay indhahooda furaan qalbigoodana furaan dadka kala fogeynaya dadka ku dhex jira dadka isku dilaya dadkaas oo dhan waxaa la rabaa in il goori ah loo yeesho dadkana colaad uma baahno nolol bay u baahan yihiin colaad way soo arkeen way soo baaba'een
rafaad waa soo arkeen qax waa soo arkeen diyaarna uma aha inay mar kale qaxaan aniga waxa shakiga jira oo aad uga shakisanahay in lagu qasbayo onalaf inay banaan aado waxa soo dhan loo sameeyo bal hadalka iga qorahada si dad loo laayo waxaan leeyahay madaxda onalaf wado ha noqonina oday maxamed ismaaciil dhaho baa maalmahan aad loo hadal hayaa ku hadal hayo waayo waa ku shalay lahaa Cabdi Ilay baad la hadashaa oo telefoon kula hadashaa oo adeerkii baad tahay kuwii baa maalmahan waxay leeyihiin maxamed ismaaciil nin qadiyad leh buu ahaa nin fiican buu ahaa ninkan uu ahaa ana idin sheegayo sababta waxa ay u wadaan laba reason baa laga wadaa sababta midi waa psychological attack oo la ataagayo maaday iyo cadaan hirmooge criminalization psychologiga cilmi nafsiga waxa jira marka aad rabto qof inaad si dadban aad ugu gudato qofka ay marka is hayaan baa la amaanaa ama la soo qaadaa oo kor loo soo qaadaa ama si sharaf leh loo soo dhaweeyaa waana sababihii aad arki jirteen kilka qof qurbaha ka tagay in cirka la geeyo sameeydan arag waa nooc ka mid ah psychological war way sababta hadda maxamed ismaaciil loo keenay ee miiska loo keenay ma aha wax kale waxa la rabaa in lagu garaaco naaday iyo cadaani maxamed ismaaciil he is a smart guy wuu fahansan yahay gameka waxa la rabaa in maxamed ismaaciil la dhaho jamhad ku dhawaaq lacag baan ku siinaynaa qandaraas baan ku siinaynaa he will never accept it ma uu aqbali doono waxa la rabaa maxamed ismaaciil jifada uu isagu ka soo jeeday ee reer cali yuusuf in lagu laayaa la rabaa oo maxamed ismaaciil intuu dhaho jamhad baan aasaasaya in jifadiisa lagu laayo rabaa yaa la rabaa qorshaha loo degay maxamed ismaaciil ee durbaanka loogu tumayana wax kala ma simple is that hadda idin sheegaya that's my interpretation anigu marka aan wax turjumanayo waxaan fiiriyaa dhacdooyinkii hore dhacay waxa hadda taagan waxa soo dhan ujeedada laga leeyahay outcome-ka laga leeyahay inta laga leeyahay maxamed ismaaciil waa inta سبعة لكن ريال يوسف محمد إسماعيل قد كريد ومهيو وين الله اللي وين الله حريري محمد إسماعيل نكي الشلي لها توي عديلي بالله الله وحال حسوستا سود أفريقيا سوى محمد إسماعيل يمد أو نكي محمد ظاهر هذا الله ده محمد ظاهر بالله شلي يونيفرسال تي في كهلي وكيري محمد إسماعيلو إن هالجماعة تهاي وانكو شرفينا حنبات شفت إلى عديلي لحظة شوط المادير تيدين marka nin madaxdaadii aad saa ku dhaxdo ee qabiil ku erido ka warama disrespect ku weyn miyaa jirta haddana maxamed daahir wuxuu iska dhigayaa dubay Cabdiilay buu kula kulmay anigu waan ogahay arrimaha dibadda ka tirsanaa Cabdiilay buu dubay kula kulmay intuu South Africa tagay isaga riyaalaha amud Xuseen Nuur toddoba iyagoo waan mar kale rabaa inaan ka sheekeeyo hawshaas aan galo maantana wuxuu ku leeyahay dadku annaga aan bahalgamaa ahayna dadku dhan tuug bay ahaayeen Soomaalidu ka yeeli maysadii Cabdiilay dadkooda ka laayay ka yeeli mahayaan ku boqolka qof 200 qof ka dilay ka qaadan mahayaan annaga reerkanaga kaliya halgamay in idinkuna tuug baad tidin ka qaadan mahayaan Ilaahay wuxuu ka bari ka aqbalay baa lagu ducaysaa إلهي وحو كابري بالو دعيستا شالي تولى دغال با لا قاداي هدا لي شيغيا انو سوماليدو runtii iyo nacab tahay shalay dagaal ba la qaaday jid waaq ba la kiciyay nima jid waaq la isticmaalay waxa la reey Cabdille barabixinayna kaalaya kan maxamed colaada ee hadda isoo galaa koow ka aha kan hadda ina actor u aha social media u qoraa kan hadda isoo galay Facebook anu dadka ma jecel inaan gadaashooda ka hadlo laakiin runta jecel inaan u sheego yaa koow ka aha aniga wuxuu ii arkay maxamed colaad nin gaal ah oo reer Cabdille ah oo Cabdiilay isku reer yihiin wuxuu lahaa waa tuugay la soo qabto maantana intuu igu soo laabtay markii isaga dantii laga lahaa laga gaaray iyo wuxuu rabaa inuu dhaho itaageer walaalaynu nahayo absamaynu nahay war absame kulemeeyhi walaalana kulemeeyhi orodo in cagjarkii ku laabo
anu markaan shalay kaaga digayay aan ku lahaa shirqool buu kuu dhigayaa ninkani dadka uu kala dilayaa waad maqli lahayd anaga cadow ii aragtay haddaan kuu sheegayaa wallaahi billaahi tullah waxaad qori jirtay iyo waxaad ku hadli jirtay kulli waan wada hayaa I will never ever trust you in my life anu qofkii bini'aadanka mar baan bartaa ma garatay I will never ever trust you in my life ma fahanti سوغر والله أنا ولي يكون آمنين ما قلت خير الساق يا عدي أنا مركي دي لسان وانا يا صوتي هاي وحنا كليه كلام you are too stupid لما stupid أو غبي يالد يحن أن سناب هذا هيدن لما دي stupid مبانا حتى الإسرائيل هيسا ما قلت period ما فهمتي مرة أنا وحاسس كده nin wadani aad nin dalka cabsanaya nin dalka Soomaalidu ma ogtahay waa stupidin dadkooda waa la isticmaalaa waxay ku dhigi dalkii gacanta kuma jiro oo marbu gacanta kugu jiray Oromo waad ku soo qaadee dalkii nin Oromo soo qaaday oo tangi soo saaray oo isagu dalkii ka bixiyay gacanta yaa wuxuu ku dhigi dalkii gacanta kuma jiro tay kuma jiraadaaba u dhiibaba marka shalay ku lahayn war dalka waa lagu soo duulayaa oo dalka waa la qabsanayaa oo dagaal baa la kala dhex dhigayaa حاجات شرتين إذوك سو قبل نقول إذا نرينين سمينا لاين ريا عبد الله واتقرأ ريا عبد الله واكن ريا عبد الله أنرينو ريا عبد الله أن خصاق قبلنا ريا عبد الله أن وحينه وحان حسوستا بشير جراد يا محمد علات كان هذا محمد علات كان أورنها قريه ريا على يوسف تايران نقصمين النار تايران برينا وحده دونتان أنا وانجرنا يا لكن كينا نقنا برينا وحده دونتان قريه ريا الساق بانو تايران نقصمين النار إذا ولقين عقل الطائرة مويان واحد كلا مكين لا ذي عقل الطائرة مويان عدي فط يا عقل الطائرة مويان حال كلا ما هيسان أو مدة اللي وبد باديو حال كلا ما هيسان أو مدة اللي حيو ما قلتين أنا ويلي منو قريه رير ساقو تشتيوكو يالنا إنت طائرة الله سبيو كوتش دوانا إنت طائرة الله سبيو يلي منو كوس فماننا طائرة الله سبيو يلي منو تدكو حوالا حلو حوالا نولا نولنا wixii siyaasad ay ku kala duwan yihiin ha ku kala duwanaadaan laakiin cadawada la beerayo ee dadka lagu dhex beerayo ee dadka lagu kala fogeynayo waa waxan deegaankeena maanta halka dhigay weey everybody oo cadawada qayb ka ahaana inuu clean iska dhigo ka yeelimayno qof walba oo Mustafa Cagjar la soo shaqeeyay oo systemka Mustafa Cagjar qayb ka soo noqday waa criminal قبيلات ودن كجي نعيب أبوري هيت أبوري ريسيست ويان محكمة دانا لصوص عريا فروندي قف والبا أو جينوسايد كاس ماشها كده عنا نمبر 1 بيكون نقولها يعني we will write down هذا documentation كانوا بلوني human rights حياة حقوق الإنسان يوحصوا أن بللو ده يجدونها everybody أو كسر قطعة كوا أمريكا كتشوجا كوا يوروب تشوجا كوا أمريكا تشوجا كوا قربها تشوجا كل مقعدو أدريس كودا ماشي يكونوا لين تلفونو ده لقوريا وحن watch list أنا كنت رأينا إنه Amnesty International human rights الله صعدان الدوك الشرعي بها كتير باسبور الجنبي الله وتقرأ قبيلات أفوفتو لكسكي يلي مهايو أو عددك قبيلات كوك عصود عددك الله هايو أذوق حوتيا سبعة أو دونكو سوق كان هذا عيد يسوق قرية له وحنوسنا سالة عيدو أنا حنوسنا يا على عاصمات قبة شرعي جاجا حسك جا عيار أنا هذا كل شيء والله الرئيس يا مصطفى عشر شرع قصين مهيان والله ربنا كل شيء دنت هذا كل شيء ما قرأت شرعي جاجا حسك جا عيار بلجيم كن يميلهن يسويسرلاند إذا أذكر يسنيس شرعي كقاضو عيار طول عيار إسك قاضو كو عبديلي شرعي كجا عيار ميلهن في الفرديان يوم ذكر من الله وارك هالك ميلهن في الفرديان كو تبور كودي بي توريد ودي بي ودتك سولايا صغير ميلهن والله في الفرديان يوم ذكر من الله ما قرأتي والله كريمنال wax loo qabtayna ma jirto cid wax siisana ma jirto صغير والله reality baan ku sheegaya ma fahanti qoliyihiin iska waxaysan war sharciyadiina iskaga ciyaarina meelihiin anu hadda idin sheegaya anu ree cabdilana toori u qaadi mahayo caadil la bur u qaadi mahayo hebel la bur u qaadi mahayo hebel la dili mahayo hebel la garaac mahayo soo tahay anu waxaan ilaashanayaa sharciga systemka aan ku noolahay لكن إيشينا أنا أركا كل كريمنال بدنا قندونتان كريمنالس بدنا قندونتان
wadamadan aad ku nooshiin baa xataa inta dad